madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa garoonka diyaaradaha ka sii sagootiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. ujeedadiisu ayaa waxa ay tahay in uu gaaro magaalada Kampala ee dalka Uganda, halkaas uu kaga qayb galayo 50 sano guuradii ka soo wareegatay markii xorriyadda ay qaadatay dawladda dalka Uganda. madaxweynaha waxa uu sheegay in casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni isla markaana halkaasi uu kaga qayb galayo munaasabadaasi. maada saxaafaddu waa mahadsan tahay. waxaan u baxayaa safarkayga ugu horreeyay oo dalka dibaddiisa aan u baxo. waxaan ka qayb gelayaa sanad guuridii 50aad ee xorriyaddii Uganda oo ugu marti qaaday madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, halkaas oo ay dabcan ka soo qayb geli doonaan madax badan oo adduunka ka kala socota. waa boqosho aad u gooban, waxayna ku saabsan tahay ka qaybgalka sanad guurida 50aad ee xorriyadda dalka Uganda oo madaxweynaha Uganda nagu marti qaaday. dhanka kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in inta uu ku sugan yahay magaalada Kampala ee dalka Uganda inuu la kulmi doono madax heer caalami ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Kenya, madaxweynaha waddanka Masar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. waxaan la balansanahay madaxweyne Kibaki oo aan meesha isku arki doono haddii aan la yiraahdo. waxaa kaloo sidoo kale aan la balansanahay madaxweyne Mursi Masar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga. booqashadeenu intaasay ku eg tahay, ujeeddadeeduna waa intaas haddii aan la yiraahdo. sida ugu dhaqsiya badanna dalkaan ugu soo noqon doonaa oo howlo aad u badan oo aniga attentionkayga ama taxadirkayga u baahan ay ka jiraan. intaan maqanahayna haddii aan la yiraahdo gudoomiyaha joogo, wixii amuuraha dawladda ku saabsan gudoomiyaha lagala hadlaa. waqtiga aad iyo aad u xiriir u yahay. waa mahadsantiin markaan soo noqdaan sawir. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii 10kii bishii Sebtembar loo doortay xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacda magaalada Muqdisho uu kaga ambabaxo dalka dibaddiisa, isagoo safarkiisii ugu horreeyayna uu noqonayo mid uu ku gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda.